السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وعليكم السلام يا أصحابتا ومركلة مقالك حيقة channelka المسيدي وصاحبكين عبد الرحمن عمر علي oo idin leh kusoo dhawaada channelka hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar si aad u rukumato dhamaan muuqaalada aan soo gelino hadii muuqaalka ku cajab geliyay like saar si share gareysi asxaabta kale oo arkaan adigoo taabanaya share ama dislike saar hadii uu muuqaalka ku anfici waayo xagga hoose ee faallada ee commentiga waxaad inoogu qortaa qoraalkaaga adigoo inoo sheegaya waxyaabaha aad jeclaan lahayd in laga bedelo qaabka wax ku wadna ama muuqaalkaas aad aragtay wax ka qaldan hadaba maanta barnaamijkan idin hayno wuxuu ku saabsan yahay qaabkii aad ku adeegsan lahayd laba program application walba gaar ahaan barnaamijyada lagu adeegsado social media WhatsApp-ka iyo Messenger-ka iyo Facebook-gaba inaad adeegsato laba Facebook inaad adeegsato laba Messenger iyo inaad adeegsato wax la mid ah naqshadaha noocaas oo kale wax la mid ah sida aad ogtahay WhatsApp-ka ama Facebook ama Messenger-ka application-ada caanka ee la isticmaalo social media Android telefonka Android-ka wuxuu ku ogol yahay hal barnaamij kaliya ayuu ku ogol yahay oo ma ogolaanayo inaad laba Facebook hal mar wada isticmaasho application walba hal mar ayuu ku shaqeynayaa oo hal user ayuu ku siinayaa marka hadii aad barnaamijka adeegsato laakiin waxa ku suurtagelaysa dhamaan application-ada aad baahan tahay inaad si sahlan ku isticmaasho marka aad rabto barnaamijka inaad adeegsato ugu horreyn inaad gashaa Play Store-kaaga marka kadib halka kore waxaad qoraysaa meesha kore waxaad ku qoraysaa parallel space ee xagga kore ku qoraysaa dan hore ugu qornaa waxaan iska dhahayaa okay aan raadinayaa marka halkaas gasho hadda telefonka hore ugu shubnaa hadii uusan ku shubnayn meesha hadda ay kugu qoran tahay open ee cagaarka ah waxay ku noqon doontaa install-ka hadda ay daqiiqado ama sakana gaaban dabeed uu ku soo degaya oo bartan ayaad imaanaysaa anaga hadda uu shubay ma baahnin open ayaad dhahaysaa markaad open tiraahdo kadib wuxuu si toos ah ku geynayaa shaashad kale oo welcome to barnaamij hadda ayaan soo wuxuu ku dhahayaa soo dhawo parallel space barnaamijka la ku soo dhawo hadda continue hore si wada shaqada continue ayaad taabanaysaa allowance ee wuxuu ku weydiinayaa allow ayaad sii dhahaysaa waa ku celinaysaa mar kale ayuu ku sii weydiinayaa oo si toos ah allow ayaad dhahaysaa ilaa ay ka dhamaato shaqada hadda markaad bartaas taagan tahay barnaamijku ku diyaarsan yahay start ayuu ku weydiinayaa oo waa start gareynaysaa start si taabanaysaa then markii halkaas aad xoogaa yar second ama muddo second ay wareegaya shaashadan ay ku keenayaan dadna halka markaad joogto barnaamijka fresh hadda wuxuu ku leeyahay application hadda waxa diyaarsan oo sax ku saaran WhatsApp-ka iyo Messenger-ka labada program iyo hadda ku diyaarsan oo aad si toos double ugu dhigi kartaa hadda uma baahnin Messenger-ka waxaan rabaa inaan ku adeegsado WhatsApp-ka kaliya Messenger-ka jeeg ayaan ka qaadayaa oo WhatsApp-ka kaliya u deynayaa halka markaad joogo xagga hoose waxaan tagayaa add to parallel ayaan dhagsiinayaa markaad aad to parallel aad dhagaasiiso permission kale uu ku weydiinayaa accept sida dalka markaad joogto mar labaad inaad barnaamijka aragtay aad isticmaashay dib ugu celi mar kale ku celi WhatsApp-ka ayaan ku celinayaa mar kale hadii waxyaabo dheeraad ah u baahdana meesha ay ku qoran tahay aad abis ayaa ugu darsan kartaa laakiin hadda ani waxaan rabaa inaan adeegsado WhatsApp-ki inaan adeegsado ayaan rabaa marka WhatsApp-ki markaan isoo xayeysiin yar ayuu ila aaday oo meel kale ah ka baxaya kan okay WhatsApp start hore shaqadu way ku bilaabatay in lagu soo qabto halkaas waxa kaga muuqda oo kaga soo baxay welcome to WhatsApp cusub oo aad hadda soo dejiso kale ayuu la mid yahay agree and continue dheh halka waxa ku qortaa telefonka aad doonaysid inaad isticmaasho WhatsApp-ka aad ku qoraysaa sida aydin aad taqaanina markii aad qorto telefonka aad qorto waxa lagu dhigi doonaa serial code ayaa lagu soo diri doonaa serial code kaasna ayaad gelin doontaa meesha verification-ka ayaad gelin doontaa halka markaad joogto lambarka ayaad gelinaysaa oo markaad lambarka geliso kadib waxaad dhahaysaa next lambarka ma ku hooyayo ku dhaha okay dhahaysaa marka code ayuu soo dirayaa code-ka aad isticmaalaysaa uu soo diray code-ka ayaan gelinaynaa code-kii uu soo diray ayaan gelinaynaa code-ka ayaan gelinaynaa oo waqti isaga dhameeyay waqtigiina uusan ka dhicin waa 77 okay code-ka ayaad gelinaysaa markaad code-ka gelisana
continue ayaa siidaysaa koodka markuu kuu soo dhaco kadib hore ayaad u soconaysaa continue allow hore u sii soco halka waxaa lagu weydiinayaa magacaaga ayaa lagu weydiinayaa haddana magacaan isticmaalayo waa cilmi sida ayaan u bixinayaa kan si aadan hadhow ugu wareerin cilmi sida channel ayaan u bixinayaa cilmi sida channel ayaan u bixinayaa next waa magacaawida oo aad wax lagu soo galamo Facebook waxa uu naqanayo wajiga ugu horeeya ee barnaamijka okay aragteen joog contents kale oo soo qabtay oo horaan u isticmaali jiray hadda waxaan halkaas ugu abuuran oo aan ku haystaa la WhatsApp oo waan adeegsan karaa labadaba mid ayaan fariin qoraalka qorayaa oo kan kale ayaan u qorayaa anoo bilaab start jaadan dhahaya mid ayaan fariin qoraalka qorayaa midka kale ayaan u qorayaa okay waxaan u qori doonaa channelka kale oo ku qoran yahay Cabdiraxmaan Cumar waa channelkayga waa andahu waa WhatsApp-kayga kale qoraal ayaan qorayaa waxaan dhahayaa assalaamu calaykum waan ku salaamay xaaladda si toos waxaad arkaysaa wixii aan qoray inay baqshad ahaan ay ku soo dhacday ayaad arkaysaa okay haddana kan kale ayaan tagayaa waan soo jawaabayaa oo waxaan dhahayaa وعليكم السلام ولو كاس بينا كحرن ومتك اوفيشال كان استعماله وعليكم السلام qaabkaas ayuu u shaqeynayaa dhammaan barnaamijka hadii muuqaalku ku qanciyay channelka share garee subscribe saar like saar si asxaabta kale intayna ay u wada gaaraan annagana aad noo dhiirigeliso like dhiirigelin ay noo tahay subscribe tan waa rekomendashada dhammaan muuqaalada aan soo dhigno waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalka